wafdiga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ay qayb ka yihiin wasiiro iyo xubno ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa markii ay gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo. Ujeedada safarka madaxweyne Farmaajo ee magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ah safarro ku aadan wada shaqaynta dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo uu madaxweynuhu ku tagayo deegaanada maamul goboleedyada dalka. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay magaalada Kismaayo isagoo madaxweynaha Jubbaland soo jeediyay hindise ah in madaxda dowladda dhexe ay xafiisyo ka furtaan deegaanada maamul goboleedyada dalka. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan reer Jubbaland maanta in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Farmaajo ziyaaro loogu yimid booqasho soo gurigiisii yimid anagu aan ka jeclaa in safarradooda ay daan hore ugu kastabayay madaxweynaha iyo saaxiibadii iyo dowladda prime ministerka iyo speakerkii inay xafiisyo furtaan marba ay joogto u noqoto wufuudda caalamiga xataa meelaha kula ballamaan shirarka ku galaan haddana waa markii koowaad hadda madaxweynuhu uu ziyaaro loogu yimaado waxaynu ku soo dhawow waa dalkaagii waa dalkaad madaxweynaha ka ahay ma aha jamhuuriyad kale meel kale jirta Jubbaland baa la yidhaahdaa waa state ka tirsan dowlad goboleedyada Soomaaliya aad baa lagaaga soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay ziyaarada adigii iyo wafdiga kula socdo waxaan idiin rajaynaynaa hadda idinku waad timaadeen ilaaliin inaad ku timaadeen inaad taallada ku bixi doontaan haddii ilaahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta ay magaalada Kismaayo ugu sameeyeen madaxda Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo. Kuweyteen adiga iyo Jubbaland sida kalgacalkooyada leh farxadda badan wanaagsan aad loo soo dhaweyseen insha Allah haddii ilaahay yidhaahdo kulliga qorshaheenu hadda alaabta ka sheegay intaan joogi doonno laakiin adaa noo talay adaa sheegay laakiin qorshaan ku soconnaa waa kaa aqbalnay halkan inaan xafiisyadii federaalkan ka furno hadday suuragal noo tahayna waxaan rajaynaynaa kulliga wixii aan ka sugayno hawshaas inaan dib ka sheegno maalmaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdo laakiin waa qaatay safarkaaga ah in meeshaanan ka samayno xafiisyadii federaalka hadday noqoto wasaaradihii madaxtooyadii wixii oo idin adama aad qayb ka mid ah aad tihiin hawshii rabay in xagga laga fuliyana qayb ahaan in xagga laga fuliyay ay fasal tahay oo hadda adeega uu meel walba ay tahay inuu soo gaaro waa safar soo socda inaan meelo kala duwanaan magaalada ka in muuqda dadka reer Jubbaland iyo Kismaayo dhaweyn fiican insha Allah laga dirko socotana waa kala wada dhisayna haddii ilaahay madaxweynaha ayaa inta uu joogo magaalada Kismaayo waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda maamul goboleedka Jubbaland qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo iyadoo sidoo kale madaxweynuhu uu booqasho ku tagi doono qaybo ka tirsan magaalada Kismaayo. Wafdiga madaxweynaha ayaa markii ay gaareen magaalada Kismaayo waxa ay kormeer ku tageen taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 43aad ee magaalada Kismaayo halkaas oo madaxweynuhu uu ciidamada u jeediyay hadal ku aadan dib u xoreynta deegaanada Jubbooyinka ee ay maamulaan Al-Shabaab iyo sidoo kale in ciidamadu ay heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda dhexe. Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi.